xildhibaanada wasiiradii hore wasiir dowlad goboleedyada ee ugu horeysa walaashay wasiiru dowlaha madaxtooyada ee dowlad goboleedka Hirshabelle dhalinyarada aqoon-yahanada dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. bacda salaam, run ahaantii galabta waa galab farxadeed, waa galab aan runtii u dabaaldegayno Forjanj Research Center oo runtii cilmi qurux badan ay baareen ee halkan inay ku soo bandhigaan ama daafurkoodu ay tahay. waxaan rabaa inaan hadalkayga wax yar ku daro. sideeda research markii la sameynayo waxaa la baaraa wax u baahan baaris, kadibna waxaa la helaa solviskii ama xalkii waxaas loo baarayay. qaranka Soomaaliyeed runtii waa u baahan yahay research noocan ah oo ku faraxsanahay galabta in aabihii waxbarashada uu nala fadhiyo Professor Khalloocow oo runtii dalkan muddo dheer usoo halgamaye oo annaguna aan ka mid nahay ardaydiisa inaan maanta aan garab iyo gaashaan u nahay oo ku faraxsanahay. waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee programkan daafurayso inaan uga mahad celiyo waqti loo baahnaa, mudnaan iyo sharafna ay ku soo aadeen. culum markii la baaro waxaa la helaa wixii laga baaray in bulshada la wadaago. waqti adag ayuu dalkeenu ku jiraa, waynu u baahannahay dhammaanteen inaynu wax baarno, wixii aanu baarnana bulshadeena iyadoo tafatiran aan u keenno. waxaan rabaa inaan oraahdeyda kusoo gabagabeeyo cilmiga ha lagu dhigay aqliga kaashaa la yiri. haddii aqligeena uu ina siiyo waxaan nala baray inaan wax ka bixinno oo bulshadeena gaarsiino, bulshada Soomaaliyeed dhammaantood way wada gaarayaan waxa aynu baarnay. waxaan rabaa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed halkan wajiyada quruxda badan uga mahad celiyo sida wanaagsan ee quruxda leh ay dalkooda iyo dadkooda Soomaaliyeed u garab taagan yihiin cilmi tafatiran inay gaarsiiyaan. waana garab iyo gaashaan ayaan dhammaantiin idiin wada nahay, waana rajaynaynaa inaan ka wada qayb qaadano culumtan la baarayo si saxanna ay dalka Soomaaliyeed iyo geyga Soomaaliyeedba u gaarto. waxaan idiin rajaynayaa dhammaantiin mustaqbal ifaaya, horumar, nabad buuxdo iyo qaranka Soomaaliyeed inuu guuleysto. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.